رب العالمين الذي بنعمة تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وبعد زكدوا طبعا وموضوع هذا مهم سمرك ولا نرش قفك سببته هو ركن أركان الإسلام كاملة والله بين على حريرة بين عن رشة هي معاملات كمالية يدنا عبادة الروحية صدرت إن أب لو دكتور هذا قفك وبرتوا مهم إسلام مدرسة كحرا inta markaan dhahno مثلا waxa soo baxaysa zakada noocyada qofka laga rabo muslimka marka zakatul fidriga iyo zakatul maal laga rabo zakatul maalka marka maalkii baa dhowr qaybood oo hadana wuxuu leeyahay noocyo kala duwan zakadiisu ay noqonayso tusaale ahaan waxa jira ganacsiga zakadiisu way ka duwan tahay zakada gaadiidka kareysan ama hantida maguurtada sida guryaha ay kareysan iyo maraakiibta waxa jirta zakada beeraha iyo dalagga dhulka ka soo baxa waxaa jira zakada ganacsiga iyo lacagaha waxaa jira zakada xoolaha foofa ama soofa say Soomaalidu tiraahdo oo dhulka daaqa geedaha daaqa aan caadiga oo banaanka u foofa iyo xoolaha qoobka xirka oo la calfiyo oo zakaduna ka duwan tahay kuwaas waxaa jirta zakada macdanta qaaliga ah ee dhulka laga qodo sida tusaale ahaan ambarka lu'lu'a dahabka dheemanta oo dhagxaanta iyo buuraha dhagxaanta qaaliga buuraha iyo badaba laga helo waxaa jira zakada مثلا waxyaalaha kale sida shidaalka oo kale zakada kalluumaysiga iyo kalluunka badda laga soo qabto waxaa jira zakada mushaaraadka iyo xirfadaha gaarka ah sida nootayooyinka iyo kelimiga ma isbitaalada dhaqaatiirta iska leeyihiin qofka injineerka xarunta iyo wixii la mid ah intaas oo dhan markii la dhaho zakada maqaadiirta ama qiimaha la bixinayo kala duwanta hantida qaarkeed zakadeedu waxay noqonaysaa 2.5 boqolkiiba qaar hantida kamida zakadeedu waxay noqonaysaa boqolkiiba 5 sida beeraha iyo kalluunka iyo qaar ay soo culimadu qabaan waxaa jira zakada boqolkiiba 10 in hantida qaarkeed laga qaadayo jirta nooc kamida boqolkiiba 20 ayaa marka qaarkood hantida ay ka bixinayaan waxay doonayaan noqotay waxa muhiim ah qofka muslimka inuu barto oo hubsado in uu ogaado zakada lagu leeyahay nooceeda hadii qofka muslimka laga rabo zakada boqolkiiba 10 ka oo uu bixiyo boqolkiiba 2.5 dabcan xuquuqdii masaakiinta iyo dadka zakada lahaa ayuu wax ka dhimay ama uu dulminaya sidoo kale zakadii laga rabo boqolkiiba 20 haduu boqolkiiba 2.5 ama boqolkiiba 5 ama boqolkiiba 10 haduu bixiyo dulmi ku tahay masaakiinta sidoo kale zakadii la rabo inuu bixiyo 2.5 boqolkiiba hadii uu bixiyo boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 5 asaga ayay xaq darro ku tahay ama hantidiisa culays ku tahay ama isaga la dulminaya marka waa daruuri in qofku xukmigan kala muhiimka oo la xiriirinayo cibaadada kaliya iyo ruuxiga aan ahayn dhinaca mucaamalaadka shariicada iyo nolosha maalinlaha la xiriirinayo inuu qofku muslimku barto waa laga maarmaan marka intuu waxaa rabaa inay kobcaysaa marka kobcaa loo noqon kobo oo toos oo loo jeesto ganacsiga kala macaasha iyo kobo ay ahayd hantida kobocda laakiin la yaabo qofku maxalli sida tusaale ahaan مثلا قررنا waxay la joogtay shirkad ay asaaseen shirkad waa shirkad weyn oo koronto gobolka Soomaaliya ka mid ah qaabkooda bay soo dareen waxay baarayaashooda bay soo dhigeen la sameeyeen laakiin saddex sano aysan bilaabin oo ah ganacsi aysan bilaabin wuu waxay yiraahdeen sababo heshiis iyo mushkilada dhexdooda hada sidoo ma laga rabaa waxaa ku qaysan intaas ay ku soo xaniban tahay لكن هذا الصواب يا أمحو أهينا أنت سحيرناته قف كيبا مثلا عشرة أساس قاعد مثلا بسوق ده بقول عم بلا أما العرس كل مسألة تسديد بغرض أما بغرض كل مسألة زمان ما شو بيسنا شخص ما بيت على الزكاة سنة مسألة على هذا لأنه الناس والشباب كثير على كل حنين يا شخص أما مشروع هم هو اسمع أما هم هو مشروع والشباب سنقدر مشروع كلا سنوي بقى توشدني كذا سمع أما الآية كم سكاد اتهام قطوطات واحد أحسن كلمة الأسماء وحالي هنتين كبع بكرة كبع واحد عن علماء حقيقي أما كبع تبجيل ما كبع حقيقي هنتين كناس يسمعني سوى اسم الله يسمع كان كبع كرتب لكن لا حيرا وحنكون دي المركة هنتين شقين كرتب لكن أقول دارك المركة مثلا دين باب عيد كل هذا دين يتحمل عن خلال كل واحد أنت سبحانه وتعالى ما حد يقول ده لو كبر حسنت المركز
hantidaas waa la sugi markay imaato 5 sano ama 4 sano ha maqnaato markii la helo yaa hal sano zakada la bixina. aad baan maaragtay ka mahadcelinayaa xubuurka iyo imaanshiyaha iyo dalabkeena aad ajiibteen aad iyo aad baan maaragtay aan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga oo aan siiseen. Amal Bank marka hore waxay ku bilaabatay xawaalad 1997kii 1998kii baa waxaa la sameeyey bangi oo shaqadiisu ay tahay keliya lacag dhigasho iyo lacag qaadasho. wixii aad dhigatid ayaad akoonnaa u furnay, dadku waxay keensadaan aan u gudin jirnay, markay doonaanna way qaadan jireen. alxamdulilah amal intaas ay jirtay weli magaalada haddaad gashaan ama aad aragtaan wax macmiil waxaan maaragtay wanaag aan ahayn oo dadka maaragtay wanaag baan u samaynay. qof walba wuxuu dhigtay qof soo noqo iyo hadhow imo ma jirto. xawaaladii qofkii loo soo dirana sidiisu u qaadanayna, wax lacag ugu leh iyo wax beeni ugu leh iyo waxaan maaragtay waxay dhahayana ma jirto. suuqa waxaweyaan waa goobjooga wahagaan. kadib bangiga wuxuu bilaabay sanadkii 13kii ayuu wuxuu bilaabay maalgelin iyo bangiyada islaamka waxa ay qabtaan oo dhan agtarkeed inuu qabto oo muraabaxadii iyo mudaarabadii iyo musaarakadii iyo kullina waxaan u maalgelinay jamiic gobollada dhan marka la eego dad aad u tiro badan, nambar aad u tiro badan baan u maalgelinay. runtii weliba maalgelin oo waxa weeyaan waxaan sameynay oo boqolkiiba 30 iyo wax la hormarinaya ayna jirin. oo qofka hadduu amal yimaado maalgelin la yimaado wuxuu sameynayaa wax horumarisa iyo wax boqolkiiba 30 iyo wax boqolkiiba 2 xataa boqolkiiba 1 lagama rabo inuu horumariyo. waa imaanayaa qofku muraabaxaysu qaadanayaa, bishii markay dhammaataan lacagtii beymitiga ahayd oo aan ku heshiinay unbuu keenayaa bas. haddii la yidhaahdo boqolkiiba 30 bixi macnaheedu waxa weeyaan qof waxaysiibaa wax loogu darayaa. laakiin annaga waxa weeyaan qof aan maaragtay aan waxaysanin oo baabuur haysanin in baabuurku u iibiyo oo uu laami kusii daayno asagoo wuxuu bixiyey. amal banki kusoo dhawaada waa idin soo dhawaynaynaa. beec waxa weeyaan maaragtay xalaalaan kusoo dhawaynaynaa oo shareecada islaamka iyo bangiga diintu waxay ka qabtay shareeca boorka baan leenahay oo wax kasta waxa weeyaan maaragtay oo muraabaxa wixii qalad ku jira oo shareecada ka baxsan soo celinaya. الله وبركاته. سيد الجمهورية وكذا واجيي أمل البنك وحا أي أتاجنتهاي إن أمضي ذي أو شقيسة برنامج البو أنا عن قوانين إنه حنقص لنا إسلامي يصيدوا كانت الظاهرة وقتنا للجو إن أي لما يستطيع هذه أنا واحد كنت أمل البنك وحيابها أي ما تكفاني كنت أمي إسلام هاي أمضي الوقوف أيدين كنت وحاكم ده برنامج أنا عن هينو أو سوفت وير كان استعماله ومid ka mid ah midka ugu caalamisan dunida islaamka la isticmaalo waxaana isticmaasho 6 of the 10 top 10 banks dunida islaamka ah. waxa uu leeyahay features aad u fara badan oo ummadda ay ka faa'iideysan karaan. waxaana ka mid ah in qofka maanta haddii website-ka uu galo uu ka sii geli karo linkiga bangiga kaasoo featureska gudaha waxaa ka mid ah inuu transfer samayn karo. transferskana kaliya kuma eko in lacagta u diri karta hal shakhsi, waxaa u diri kartaa large process samayn kartaa boqolaal qofood one kliga ku samaynaysaa automatically meesheedu kusoo dhaca. waxaa dheer in message uu dhacayo qof walba oo waxaa dheer in micnihii qofka aad lacagta u dirtana message uu dhacayo adigana uu kusoo dhacayo. qofkaas haddii uu dal iyo dibadda meel walba uu ka joogo numberku wataa wato wuu dhacay isagana. sidoo kale Amal Bank waxay soo kordhinaysaa nidaam mobile banking ah oo caalami ah. nidaamkaasna haddii aad joogto waddan kale ama UK ama Australia ama Mareykanka
amal banki akoonkeeda aad isticmaalayso simkaarkaaga aad ka soo gelaysaa akoonkaaga balance aad ka jeegaraysanaysaa transferna u samaynaysaa qof akoonkooda Soomaaliya asagoo joogo marka waa wax runtii very advanced oo maanta aan ku faani karno maalgelinada aan sameynayno sida gudoomiyaha Cabdiwali uu sheegay waa midaan down payment lahayn ayadoo laga fiiriyay baahida dadka u baahan maalgelinta iyo sidoo kale islamically marka mar raba inaan warka ku sii dheeraado waa soo koobaynaa waana ku faraxsanahay inaan maanta noo timaadeen nafisa oo matalaysa rugta ganacsiga iyo amal bank waxay idin leeyihiin waad mahadsantihiin kulamo soo socdan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u yeero waxay moodaan rugta ganacsiga inay lacag haystaan annaga wax siinayno muhiimadana taas maahan anaga lacag haysano mana siinayn laakiin muhiimadana waxaa isku xirka bangiga in gabdhihii maaragta wax la baro oo laga dhaadhiciyo inay awoodi karaan ama heli karaan inay helaan lacag ay ku ganacsadaan marka fariinta la diraa waxaa gabdhaha waxaa la rabaa in la fahamsiiyo inay gabadhii heli karto wax yar ay bangiga kasoo qaato oo bangigii furan karto oo bangi yeelan karto oo xiriirigan la yeelan karto inta badan waa ku dhiirigelinaa waana barnaa hadda wixii ka dambeeyana kole waa isku xiranay marka ayagana inay sii gaarsiiyaan bangiyada in la furto lacagaha oo jawaanka hoostiisa la gelinayo iska dhaafo isdhex galo saasaa